kulanti wacan wanaagsan daawadayaalka naga socotaan waa channelka Rugta TV kusoo dhawaada warbixin xiiso badan oo ku saabsan nooc cusub oo fayraska COVID-19 ah oo ka soo shacbaxay qaaradda Yurub gaar ahaan dalka Ingiriiska. xanuunkan cusub ayaa aad looga walaac qabaa dunida oo dhan oo khalkhal ku riday isla markaana saddex jibaaray kiisaskii dalka Ingiriiska ee coronavirus. in ka badan 40 wadan ayaa dhammaan joojiyay in dalka Britain looga soo dhoofo sababo la xiriira nooca cusub ee hidde-sidaha fayraska COVID-19 ee laga helay dalkaasi Ingiriiska. diyaaradihii Britain ka tagay ee u socday dalalka sida Sacuudiga, Spain, India iyo waliba kuwa kale ayaa dhammaantood la xayiray. Faransiiska ayaa xidhay 48 saacadood xuduud badeedka uu la leeyahay dalka Britain. waxaana ku xayireen dekada cover boqolaal baabuurta xamuulka qaada ah iyo dooniyihii u kala gooshi jiray labada dal. waatan mid ka mid ah warbaahinada ugu afka dheer Soomaalida oo ka diyaarisay warbixin xiiso leh. badiya bariba Britain waa godoon. ra'iisul wasaaraha oo shir jaraa'id qabtay fariintiisa waxa ugu weynayd inuu dejiyo xaaladda iyo saameynta uu jiilka cusub ee xanuunka COVID-19 ee dhowaan la ogaaday ku yeeshay dalka. xogayaha caafimaadka Ingiriiska ayaa toddobaadkan sheegay in xanuunkan cusub uu 70% ka fiditaan badan yahay kii hore loo arkay, xaaladuna ay faraha ka sii baxayso. fariintaasi waxay ku socotay dadweynaha Ingiriiska, laakiin waxa iyaguna fariintaas qaatay wadamo badan oo caalamka ka mid ah kana falceliyey. taas ayaa keentay in badiba wadamada Yurub joojiyaan isu socodka Ingiriiska iyo dalalkooda. xayiraadani waxay iminka u gudubtay caalamka bari iyo galbeedba. dalalka ay ka mid yihiin Sacuudiga, Israa'iil, Hindiya, Canada, Argentina, Chile iyo Colombia ayaa ka mid ah wadamada joojiyay dhammaan diyaaradihii uga tegi jiray Britain. waa ilaa 40 wadan. Faransiisku waxa uu xidhay xuduud badeedka iyada oo la joojiyay doonyihii iyo tareemadii u kala gooshi jiray labada dhinac. waxaa bilaabantay cabsi laga qabo cunto yari iyada oo dadka qaarkood iminkaba bilaabeen inay badeecad badan iibsadaan. ra'iisul wasaare Boris ayaa ugu baaqay bulshada inay si caadi ah u adeegato. waxaa kale oo uu sheegay inay wada hadleen madaxweynaha Faransiiska kana wada xaajoodeen in dib loo furo marinka biyaha labada dhinac. dhaqaalaha, socdaalka, caafimaadka, qayb kasta oo ka mid ah nolosha bulshada ayuu xanuunkani saameeyey. wadahadaladii London iyo Brussels weli waa la isku mari la'yahay. tanina waa culays kale. Boris Johnson waxaa ku gadaaman xaalado siyaasadeed oo adag. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo siyaasiyiin ayaa soo jeediyey in dib loo dhigo ka bixitaanka UK ee Yurub. qof kasta oo arka baabuurta xamuulka qaada ee teedsan magaalo xeebeedka Dover waa uu dareemayaa inuu culays jiro. haddaba saameyn intee leeg ayay arrimahani ku yeelanayaan siyaasadda Britain iyo Boris Johnson? Maxamed Ibrahim Herari oo ka faalooda arrimaha Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey. waxaa 10 maalmood oo kaliya ay ka hadhay waqtigii uu ka bixi lahaa wadankani midowga Yurub. waxaa jira baaqiyo ka imanaya siyaasiyiinta waaweyn ee wadankan sida wasiirka koowaad ee gobolka Scotland Nicola Sturgeon oo ku baaqday in dib loo dhigo ka bixitaankaas midowga Yurub. baaqa waxaa ku raacay mayorka London Sadiq Khan iyo madax ka mid ah xisbiga talada haya wadanka UK sida gudoomiyayaasha guddiga baarlamaanka ee waqooyiga Ireland iyo difaaca kuwaasoo kala Simon Hoare iyo Tobias Elwood. dhammaan waxay siyaasiyiintaasi ku baaqeen in miisaanka la saaro la tacaalidda xanuunka corona iyo in la hakiyo wadahadalada Yurub iyo UK ee aan weli wax heshiis laga gaadhin waqtiga wadahadaladaasna la kordhiyo. laakiinse waxaa codsiga ku gacan sayray wasiirka gaadiidka ee UK Grant Shapps. cabdiyo waxaad arki doontaa 5 bilood ka bacdi marka ay timaado haddii Ilaahay ka dhigo doorashada Scotland in sida ay dowladda dhexe u maareyso ka bixitaanka midowga Yurub iyo xanuunka coronahaba ay qayb weyn ka noqon doonaan ololaha siyaasadeed ee xisbiga SNP iyo hogaamiyahooda Nicola Sturgeon ay ku rabaan inay Scotland kaga gooyaan UK inteeda kale. 36,000 oo kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 ayaa laga diiwaan geliyay Britain Axaddii. haddaba sidee ayuu xanuunkani dadka u saameeyaa? su-aashaasi waxa aan weydiiyey Faiise Cilmi oo ah kalkaaliso caafimaad oo ka shaqaysa cusbitaalka guud ee magaalada Leeds oo ku yaala waqooyiga dalka Britain qaybta xaaladaha adag. cudurkan hadda socday loo yaqaano coronavirus markii hore uu bilowday waxaa la moodi jiray inuu yahay xanuun abaara sanbabada sababtoo ah qayb ka mid ah dadka uu ku dhacay ama uu haddaba ku dhaco ayaa waxaa qabata neefta. in badan oo dadka ka mid ahna waxay u baahdaan in lagu dabiibo ama lagu xanaaneeyo qaybta daryeelka culus.
loo yaqaano af ingiriiska ICU ama ITU. dadkan waxaa dhacda inay oksijintooda hoos ay u dhacdo ilaa ay qaar kamida ay gaadhaan heer aysan awoodin inay iskood u qaataan hawo. haddaba dadkan waxaa lagu xidhaa mashiino, waxaana lagu bilaabaa dawooyin seexiya si loola wareego inta badan shaqada xubnaha jidhka, loona siiyo fursad ay xubnahooda kusoo kabtaan. haddaba waxaa soo baxday inuu fayraskani uu bukaano badan u keenay xanuuno kale oo dilaa ah oo ku dhaca xubnaha kale ee kala duwan ee bini'aadamku leeyahay. bukaanadan intooda badan waxaa dilay ama ay u dhinteen faalig, wadne qabad iyo keliyaha oo shaqada joojiya ama yareeya. arrintani waxay caddeyn u tahay in COVID-19 yahay cudur dhib u geysta xubno badan oo kamid ah jirka, oo uusan ahayn cudur hal xubin wax u geysta. dhinaca kale, hay-adda caafimaadka midowda Yurub oo fadhigeedu yahay magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaa sheegtay inay ogolaadeen in la bilaabo tallaalka ay sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech iyada oo lasoo horumariyay 8 caanamaal. tanna waxay imanaysaa iyada oo guud ahaan dalalka Yurub uu xanuunku si baan ugu faafayo. Brussels waxa kale oo ay sheegtay inay go'aan wadajir ah ka soo saarayaan xakamaynta isu socodka iyaga iyo Ingiriiska. halka aad kala socoteen daawadayaal warbixinta xiisaha badan waa Rugta TV. wadalaba kala socotaan wararkii barnaamijyada ugu xiisaha badan, fadlan rukunta janaalka si aad ula socotaan wararka dambe oo subscribe leh haddaad ka heshay muuqaalka like saar. waxaan sidoo kale daawadayaal digniin siinayna inaad iska ilaalisaan xanuunkan coronavirus oo adduunka fara baan ku haya, isla markaana dhibaato baan u geysta caafimaadka bini'aadamka.